wanaagsan maanta vlogina waxaan ku bilaabanaa xad waxaan labisanyaa sawir arkasiin waxaan tagayaa downtown waxaan ii duubayaa xayaasiiskii aan sameynayay for Asri Jewelry pop-up shop January 4th markaas haddii aad kada joogtid Ottawa Gatineau flyerka xagan ayaan soo dhigayaa haddii aad noo iman kartiin aad iyo aad ayay taabsan doontaa waxayna noqon kartaana fursad aan isku aragno because badankiinu dee anigu kamaraagan maan la hadlaa so waxay noo noqon kartaa reason to see each other markaas imka downtown ayaan tagayaa waxaan dee nii duubayaa that little reel aniga leeyay soo baxa so inshallah inala socda let's go guys okay guys so meesha baan hor joognaa I don't know haday maqlaysiin ba waa kun flyerskii haddii aad aragtiin xagan ka qaata so you can register anyways waxaan hortani tusayaa meesha alaabtaa soo bandhigay mar hore waan tusay laakiin haddana dib ayaan nii tusayaa so let's go meeshu waxaa la yidhahdaa the Hub Marketplace coffee shop weeyaan waa iska iman kartaa alaabteeda xaggan ayaa lagu hayaa iyo waxyaabo badan oo kalena way iibiyaan ماشي أيام جوجا ماشي عني قبتي ماشي ممال أدي أدو قرح بدو محنا جينا أنت عملتها الصبح حديد أي قرب جوج 60 رحت ماشي عني يتصو ماشي نحيا ماشي صلاة اللي قلتو كنا يو صلاة ما يتاتي معدين صلاة دينا إن شاء الله صلاة اللي ما دعفة صو ماشي نيا صلاة اللي قلتو كن كرتين حاجة نوحي نغندون تا ماشي نفريسن دونو شيكسن دونو ما ينتاس نوحي نوت هاين عن فرصة أن نسكو أرقنو أسبرنا حاجة نيا تصاوير سكقادنا عنتيننا باشالنا إن شاء الله ماشن حقنا أركسين إن شاء الله وحن كسر بندقيا jewelry anyways قف دتك كسر قريب قالوا ما دمش أركي دونا مالين تاس وحن ربا أنت كو أنس برانو meet and greet أيان قندون تا photographer أيان قبصدي so تصاوير قرح دونا أيان سكقادي دونا تصاوير تجايز أكعب سونينا هدي الربين أنت عن السوشيال ميديا عن صادقة إني كني صار دري دونا إلا قف أيان ما أنت قبصدي so إني كانوا وحنين نقندون تا opportunity that تصاوير قرح بدنا يسكت قاعدين وفاميلي جينا إنكم بيسكت حيستين but yes إن شاء الله on toast snacks the whole shebang so إن شاء الله وحنا جينا أنت ولا يقرب جوجتين الصوب بحدين مالين تاس the new collection the last collection everything will be there also وحنا بحين دونا 10% off مالين تاس to celebrate سنة جوري هنا إن شاء الله so وكاس 44 Byward Market flyer كحاجنا يا صورة screenshot كقاطع host the comment section كده Eventbrite link يا صورة دونا وبلاش ماشي بلاش ويت أيات هاي العقمة بحس لكن أنا جا وحي إيه شيء دون أنت قف إيك سوق يبقى إن شاء الله مالين تاس guys إمك وحن قريان كسعداء وحن صامري meelo badan Shaafici Carta Aare xagan restaurant dukaan kale gabadhan garanayo flyerkayga meel kastaan dhigay marka aad aragtiin flyerkayga nasteex xagan way timiday ka dhigantahay ama nasteex xagan way soo martay fadlan soo baxa guys kani wuxuu noqonayaa eventkii ugu horeeyay keligii aan sameynayo badanka the eventyaasha waxaan la sameeyaa qof kale ama group kale laakiin this is the first one aan keligii aan sameynayo so fadlan please come out and support inshallah and wallahi maanta farxad badan ayay intaan meel kasta maraba dadku way garanayeen oh nas waxaan isiraba you're actually popular anigu de kulay way inoo kameraaga ma la sheekaysanaya laakiin ma sha Allah wallahi I really love you guys ii dhirigelisiin ii garab joogtiin I love all of you guys and waxaan rajeynaa inta maalintaas soo baxdeen aan is aragno reer Ottawa reer Gatineau reer Montreal reer Toronto meel kastaba Canada aad joogtiin haddii aad noo iman kartiin fadlan noo kaalaya alright guys inshallah the way no abritole bye waatan cuntada maanta soomkan ku jabinayo it's not beautiful لكن ومعان اوكي كان هو دقص سو حاجه نوع بير او حالته شالته كسو يبسد عرتا مركان فلاير كان جيني عرتا وريستوران كو يالا سان لوران اريا حاجه اوتوا او دعان او dad badan yaqaaniin حاجه waxaan ag dhigay chicken arta beerku uu fiican yahay beerku waxa ku dhex jira nafaqo badan markaas is amazing digaag ayaan xagan u raaciyay iyo canjeero aan ka soo qaatay حلال كشافعي شايدر سالارويا جوجي
markaas ayam waxaan cabayaan xagan sharaabkeygii Zevia dadka sodaga waxa ka hela kani waa good replacement saarkaasina waxa zero sugar waxay ku macaaneeyeen Zevia so stevia baa unjida stevia uu ka wanaagsan yahay kuwa kale zero sugar ka la yaqaano stevia ku wanaagsan yahay so anyways that's what I'm eating bismillah guys wala biste maanta waxaan leeyahay interview markaan bilaabo waan weydiini doonaa gabadhooda doonato intee skin barto kale bayada exposure ay u noqonaysa dadku bartaan maanta waan soo lugayay maalimahan lugti waan yareeyay runtii because gurigan exercise ku sameeyaa laakiin wallahi maanta markaan dibadda u baxay xitaa dibadda u arkaysay baraf ayaa meel kaste yaala waa qabow laakiin dhulkan waa la silsilbanayaa soo ma fiicnaba lugtaba kuma fiicno laakiin markaan lugeynayay waxaan xasuustay sababtaan faa'iidada ku jirta lugta exercise ma aha waxayna u fiican tahay mental healthka right waayo inta dibadda u baxay sida qoraxdeeda arkaysi leerdheer ku taabsanayso wallahi it gives you like a good mood waxaa dareemaysaa farxad yar you know so I think toddobaadkeyga waan bedeli doonaa lugta sidaan dee usoo cesho waqtigaagu yar ma samayn karo exercise yar lug labadaba ma samayn karo markaas waa intaan toddobaadkeyga nadaamiyaa sidaan maalin exercise sameeyo maalina lugta aan soo lugayo insha allah so anyways iminkaan bilaaba interviewga we'll see that damsi soo gasho gabadhu kii walaalayaal iminkaan ila hadlayo waxa weeyaan afartii caruurtii ayaan soo qaadayaa xaggan ayaan kusoo gabinayaa vlogga I don't know intaan wax badan ii duubay laakiin waxyaabo badan ayaan maanta qabanayay saa aragtan interview ayaan sameynayay pagekooga hoostaan soo dhigay waa group iminka bilaabo oo dee raba intee soomaalida adduunyada meel kastay joogoon oo dee khibrad ku leh waxay doontaba aan noqoto expert haddaad tahay interview ayay sameeyaan marka waa meel ay dadka isku keenoon soo linkooga hoostaan soo dhigay fadlan la socda wax wanaagsan ayay sameynayaan interviewgoogana xaggan ayaan ku share gareyni doonaa insha allah taas ayaan sameeyey packageyaal ayaan diyaariyey cuntaan kariyey waxaasoo dhan nima duubin muuqaalana waan ii duubay oo dhirigelina that's why makeup amarsan yahay anyway so wax badan ayaan sameeyey insha allah britole ayaan wadi doonaa weekly vlogga so wayno britole love you guys bye assalamu alaikum beautiful people salaaso wanaagsan maanta waxweeye maalintii dhalashadeedii happy birthday to myself alxamdulilah wallaahi ilaahay cumriga ay dheereeyo shalay tole anigoo interview markay aragteen interviewga anoo isku diyaarinaya dateska meel ku qoro and then waxaan arkay intee had December 16 maanta britolena maanta ay tahay my birthday basically shalay tole ayaan xasuustay dhalashadeedii and it's funny because caadiyan sanad kastaba it's a big deal sanad kastaba wax baan sameeyaa waxayaan sameeyaa laakiin sanadkan I don't know waan ogaaday intuu dhalashadeeda soo dhowdahay laakiin it just happened but alxamdulilah wallahi maanta aniga is casuumadeeyey waxaan siray take a day off waxbaana ma qabanayo guriga kama shaqeynayo cunto ma karinayo waxba anigu wallahi I think waxaan ahay in yara workaholic like shaqadu naturally waan sameeyaa mana waxaan is arki anigoo isle waxa ma qabanaysid adana waxaan is arkaa anigoo wax qabanaya haday tahay social media haddii tahay guri nadiifiyo haddii tahay cunto so imika waxaan odagayga wuxuu soo iibiyey aan yartu so thank you husband flowers are the way to my heart so roses are you soo iibiyey because you know that's how we do it and waxaan ka eray obviously uu ogahay intaan hilibka iska ridayo keega adduunyada ku jecel yahayna waxa weeyaan carrot cake wuxuu ii soo iibiyey small little carrot cake xagan waxaan ka eray mid weyn ah soo iibin because walaal haddii aan carrot cake guriga aan ku haysto waan ka dhex baxaa like waan ku quraacan soo ma doonayo inta dietkeyga dib u dhaco so wuxuu ii soo iibiyey mid yar happy birthday ku qoran thank you husband I love you and yes waxuma qabanay maanta xaggaas ayaan iska fariisan kamaraaga yar qaado ayaan is irintan dee bas weekly vlog aan ii wado but yeah that's it I think waxaan u qoray inantii arman malaha khamiista ama jimcaha waxaan qoray kaale skin care yar ayaan sameysanay and that's it caadiyan sanad kaste at least waxaan sameeyaa spa iyo waxaas
لكن إمك حفلة صوص عطا January 4th كدب عند سبا دي قاد سميسن دونا مركز أيام دي نفط ذاك الشقياني إن شاء الله. لكن إمك I have so many projects. I don't even have time for taking care of myself. لكن ما أنت وانا صنايع. So ساسا ينقو ديني إن شاء الله دوينو بريتالي 4 actually وحبكم تلقين سوقان تجي لوكاس إن شاء الله. I know the next time I guess. السلام عليكم وليال. سمانتا وحويان having سبتيات وحنا كبودي weekly vlog 4 خميس جمعة صدح عشود وانا سنة. so إمي كوحة سليدي نستحى محاور دكنو حري وحن تجي events باركي دونتين بلكن وحن حري هاي دركي هدية دقنكا عيسها وعيلة جوكتا مهدا. You guys know Mahada, right? Yeah. Yeah, they know Mahada. You have to know me. Yeah, you know? by now they know you. Yeah. So yes, let's go inshallah. ده حنيتو بكرة حنيتو بترى. شرف بسود هذا إن شاء الله حفلة عاوة إنكم قلب فرن والسود ويننا أنا قبل نادر سياسة الجنون مكايدنا إنجليش بكوها إن شاء الله. Assalamu alaikum everyone. I hope you guys can hear me. We just wanted to thank you guys for taking the time to come out tonight to celebrate obviously the recognition of Khair Issa by UNESCO. هدية دقن كان ستو so marka هدية dhaqanka ciisaha waa kan. It's funny because habla saaxiibadahay oo reer Soomaaliya markay ku arkeen dharka hiddiyo dhaqanka and then obviously ee garbaha it's a little bit different. guntino ma had right san ayaa loo tolay mid akhtana haystaan guntinihiina waan haystaa oo markii ugu horeysay nacam arkeen dharka caynkana hiddiyo dhaqanka ciisaha and kuushana Djibouti bay ahayd 2022 markaan tagay ayaan kasoo iibsaday. It's really cute. ilqadii ayaa la socdaa gacantii xaggan and then dashamada anaa de u dul gashtay laakiin caadiyaan garabka saas weeyaan garabka furan but actually somehow loo xiro lahaaba saa loo arko at least siduu yahay but yeah. Okay guys, gaalka duwada ay haysaa laakiin meesha horhoraan uga socday because obviously baby ayaa guriga ii jooga markaas laakiin wallahi maasha allah si qurux badan bay u dhacday. dad badan ayaa meesha isku aragnay and you know recognition kan ayna siiyeen UNESCO waxay tahay wax horta waxay noo tahay anaka dadka ciisaha wax dee you know aad iyo aad u qurux badan oo dee dad badan kusoo daaleen markaas hambalyo and qabiilku intuu noqdaa maaha wax na kala kaxeeya. Soomaaliya haddaan wala nahay dad kale haddaan nahay wallahi isku luqad isku diin isku dhaqan we're all the same people. anyways xaggan ayaan kusoo gabayn guys insha allah toddobaadkan soo socda waxaan rajeynayaa intaan nii soo badiyo dee maalin kasta nii duubo. toddobaadkan saa aragteen wax badan ma duubeen. waxay ahayd salaasadii waxay ahayd maalintii dhalashadeeda markaas waan iska nastay. maalin kale hataan ku talagalay intaan nasto laakiin salaasadii baa ii macaanaato waan ku biirsaday arbaca iyo khamiis iyo jimca. kaas walaalayaal insha allah de waa inoo mar dhow. love you guys. maca salaama.